maanta ay ku beegan tahay 12 bishii Rabiicul Awwal oo ah maalintii uu dhashay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa dadka muslimiinta ay aad u weynayaan. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada Islaamka oo maalintan qiimo gaar ah u yeelay isla mar ahaantaasna ka dhigay maalin fasax. Waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu weyneynayay dhalashada xabiibkeena kaas oo ay soo qaban qaabiyeen culimada Ahlus Sunnah wal Jamaa ee ku dhaqan Kismaayo. boqolaal dadweyne oo isugu jiray rag, haween, dhalinyaro iyo caruur ayaa isugu yimid barxadda weyn ee masaajidka maxfalka halkaas oo culimadu ay dadku uga sheekeynayeen siiradii suubaneed ee nabigeena. ugu horreyntii qasaa'id lagu ammaanayay rasuulkeena ayaa goobta lagu akhriyay. فرلون علينا حبه وينفعه في ذي وفي القيامة أقس معي الله. فرلون علينا حبه وينفعه في ذي وفي القيامة أقس معي لولا ما كان وجود كله فقد به الإمام بتناوعه الله. إلهي فاق قدرك في المعالي فأصلح في الرعية والرعاة. إلهي قونا في فعل خير من الضاعات ضرا كسلاتي. إلهي كن لنا عونا ونصرا على نفس والدنيا والعدات. إلهي نرتجي منك العطايا فأدخلنا الجنان مع النجاة. Sheekh Ali Nuur Sheekh Aadan iyo Sheekh Jaamac Suleymaan oo kamid ah culimada aadka looga jecel yahay magaalada Kismaayo ayaa ku dheeraaday ka sheekaynta mawlidka nabigeena. haddii nabiga sidan oo kale loo dareensiiyo oo la yiraahdo maalintii uu dhashay iyo maalmo kaleba war ku salliya nabiga sallallahu alayhi wasallam ma aha in la dhaylaaso ma aha nabiga mawlidka ama xabla qaba dhaylaas iyo ciyaar la yiri waa ciid maanta biliq ma aha war in nabiga la xusuusiyo sallallahu alayhi wasallam oo sida imaam Suyuudi baa uu kitaabkiisa Husnul Maqsid ku soo rarahay quraankii la aqriyo oo sadaqadii la baxo oo salliga nabiga la badiyo sallallahu alayhi wasallam oo siiradiisa la badiyo oo nabiga laga sheekeeyo dhaqankiisii oo nabiga muuqaalkiisii laga sheekeeyo oo dadkii nabiga la baro alayhi salatu wasalaam oo ilmihii la baro oo kolkii sidoo kale hada loo shanqaro ilaan waa maxay waa nabiga dhalashada la wada fiir dareen baa la qaadayba oo ilmihii dareen la geliyo oo marasi aan dareen la geliyo oo leesiirada hal aqriyo oo salliga hal aqriyo dhaylaas lamar oo sadaqa la baxo war maxaad wax u bixinaysaa nabigeeyii Muhammad sallallahu alayhi wasallam baan u bixinaya warintaan wax kale la gaarin waxaan u maleynayaa waa inta badan culimada ama qolyahan inta badan mawlidka hadda waa yaani qaabkan loo dhigay radiya culimada ay ugu cuskasho badan yihiin oo aad waa Ibn Taymiyyah Sheikh Ibn Taymiyyah waa rag ugu horeeyay ابن تيمية انتو يري كليه كتاب كيسا وان هيا كتابك ما اها واحد اقتضاء الصراط المستقيم كتابك كليه بالفير انت بالفير اراده ابن تيمية وحو يري تعظيم المولد نبي قال دلشديس او لوينيو واتخاذه موسما اسو امات سدان او كلا لغا ييشو واسين هدانو فدينو فيرسدا تعظيم المولد مولد او لوين دلشدا نبي قال لوينيو واتخاذه موسما اسو امات لغا ييشو قد يفعله بعض الناس ذاتك بركي ويسميان ويكون له فيه أجر عظيم أجر وين بقى وصلنا هو محي ولحسن قصده أنت أنكر بابتنا
ولحسن قصده ورما ديلاس بان وجهنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم جعيل كيس يا موجنتيس يا شفاعتيس إن هلو إيه إن مبا قاري كرئه بل وحون كديو فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح فتشبهوا ورسوا كيسية بل إن لم تكونوا مثلهم أدينا عليادي وكل مثلهم علمادي وكله رجع أجلاء وكل هدينا أهان كريم ورب الوحاجة يسوي كيسية يعني لنا هاي إن التشبه بالكرام فلاح ورجع اللي يسوي كيسية أيضا بقولها وروحاجة ونسوي كيسين هنا وركل جعيل كالنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي النولين تيسا يا عيالك يا مرستي قلبي قاضي إن كنت الله النبي قال إن موجنه قال وحيسي وموجي منافق وحيسي وموجي شركة واحدة ومقصتي ومالك شركة هبلاية دولة والبا علنك مال هبلاية مالك كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل كيسوب هذا مركا إن يدك الدرين قليل ويان وأيق اللفتوض بعد مركا أي ويضعف لما لقد دريمه صح ما بقول كن أو معناها زبدة صدق كن أو صحن أو حلوة على بهالك كسي وضع مركا وجدك يا النحر كوحوية arrintan macnaha maartada aynu sameeynano xoolahan faraha badan ee la qalayo qurbaanka faraha badan ee la bixinayo sadaqaadkan faraha badan waxaynu inagu hadda bilaabana maahe waa wax ilaa salafkii la soo sameyn jiray oo nabiga loo sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam kuwan ka waaweyn macnaha maartada ay dhigi jireen dadka markaas waxa weeyaan dadka tashwiishinaya oo la culimo dadkii caamadaha khaldasa markaas ay xoolahoodii bay macnaha maartada oranayaan keen siyaarada mawlidka nabiga lagu dhigayaa oo ka qaadayaan may masaakiinta iyo fuqarada siiyaan oo kuwan yaa la siinaya كون يلا سلام عيد على جروجا يا حولها إنه قلنا معيد إنه كروجنا صفقراء يا مساكين يا إنه باهن يا إنه معناها ما لأن كل ذي ربي معناه ذي كبد ربي صنعنا واحد مركع عجيبة وين عجيبة وين مركع إلى الآن هذا معناها ما وحلا يابله حفلة داس النبي قال الله رجعيه يا وحن خير هين عن الله قصة ماينين النبي قال لقوم مع موسى صلى الله عليه وسلم بحبذ النبي معناها مارتين لقوم موجنايه ضدك النبي قال لقوم براي والقرآن كمحل الله قرأ مركي القرآن كله قرأ محل الله قرأ سو إنه صنفكنين القرآن كله مقرين دي حفلتنا وحنون دقنا النبي يقول صنفكن صلى الله عليه وسلم إنه النبي يقول فكنين ضد كان بحويان بنوني عيارة قال دي معناها ملك استدعوه ودي فافنسو هذا النبي محمد لبرين ضد كبل أفر بالله عليكم ضد كحفلتها النبي محمد لقوم مع موسى يعني معنين نبي محمد نرى يقانا المنش على صلى الله عليه وسلم صمرتين برد سوي دي النبي محمد ما بيقانا ما كا معناها مارت هذا قال كاه وحويان دور كله غاون اي تاجر سيهنا كبد عياره كاسي جعل النبي محمد كيقانا صلى الله عليه وسلم هذي مركز وحويان ايمان لها انه حفلتها يكسو قيب قال لهايين ما يصنقدين سداس هذه دايرتها يكوا هذا فرديار النبي محمد لبر لهين dadka kaba yaqaan النبي صلى الله عليه وسلم marka sababtii ama ciladii keentay quraanka in la qoro ba xaflada النبي محمد lagu maamuso in la dhigo yadana keentay la farq baynahuma qof kala geynaya halkaas soo taago wabillahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh idriis maxamed xasan kismaayo